dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay baajisay gabdhihii u dhashay dalkeeda isla markaana watay lacagtii lagu guursan lahaa una soo socday qaaradda Afrika. Maxay tahay sababta ka dambeysay in dowladda Sacuudiga ay go'aankaasi gaarto? Maxayse tahay go'aanka cusub ee ay soo saartay dowladda Sacuudiga? Muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa balse marka hore u sheer garee dhammaan dadkii sugayay gabdhahaasi. Beeshkana ku soo biir adiga oo follow saaranaya. dowladda Sacuudiga ayaa shaacisay inay baajisay dhammaan hablihii u soo socday qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwa oo watay lacagtii lagu guursan lahaa. dowladda Sacuudiga ayaa tilmaamtay inay u cabsatay ammaanka gabdhaheeda, waxa ayna sheegtay in qaaradda Afrika haddii ay tagaan wax walba laga filan karo. waxa ay soo saartay go'aan cusub oo laga yaabo dadka qaarkii inay aad u anfacdo. dowladda Sacuudiga ayaa soo saartay go'aan ka duwan kii hore. waxa ay tilmaamtay in qofkii u baahan gabdhahaasi inuu guursado inay yimaadaan dalkooda si halkaas ay ugu guursadaan. laakiin dowladda Sacuudiga waxa ay tilmaamtay in marnaba gabdhahaasi aysan iman doonin qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. dad badan ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u sugay gabdhahaasi oo hadalhayn badan ka dhalisay meelo badan oo dunida ka mid ah. laakiin hadda go'aanka ay soo saartay dowladda Sacuudiga waxay u muuqataa mid niyijibinaysa dhammaan raggii isku diyaariyay helidda gabdhahaasi, maadaama hore loo sheegay in toddobaadkan dhammaadkiisa ay imaanayaan. haddaba adiga ma ka mid ahay dadkii sugayay gabdhahaasi? maxaase kaaga qorshaysan go'aanka cusub ay soo saartay dowladda Sacuudiga oo ku aadan in qofkii raba gabdhahaasi ay dalkooda yimaadaan? dalkooda ma u aadi lahayd gabdhahaasi si aad u guursato mise waad iska dayn lahayd? aragtidaada aad ayay muhiim u tahay inaad nagula wadaagto qaybta hoos ee commentiga, adiga oo sidoo kale muuqaalkan u shirgareynaya saaxiibada kale ee sugayay gabdhahaasi inay yimaadaan isla markaana guursadaan. sidoo kale waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad page-kan aad follow saarto si aad mar walba u hesho macluumaadka iyo xogaha kala duwan ee cusub. waa saaxiibkeen Cumar Buulo idinku dhaafaya. sidaa ay nabadgelyo.